wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir agaasimaha gudaha wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiinta booliska iyo saxaafadda saraakiisha kala duwan maamulaha iskuulka iyo madaxda wasaaradda dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo maanta waxaa inoo suurto gashay ilaahay idinkiisa inaan si rasmi ah u daahfurno imtixaanka dugsiga sare fasalka 12aad ama form 4 hadba sida loo yaqaan ardayda dugsiyada soo dadaashay oo sanadkan fasalkoodii 12aad imtixaankoodii u fariisanaysa sanad dugsiyeedka 2020-2021 waxaa muuqata run ahaantii kal hore waa ku daahfurnay halkan isla iskuulkan sanadkii ka sii horeysay 15 May baan ku daahfurnay markaad eegtid 2017 ilaa hadda sanad walba waxa soo kordhaya ardayda fasalka 12aad imtixaanka u fariisanaysa waxay ka turjumaysaa dadaalka dawladda iyo shicib aan ku wada jirno iyo waalidiintu inay rabaan caruurtoodii inay iskuulka u diraan dawladdu taagto meel ay dhigtaba ay u dadaasho in daayirta Soomaaliyeed wax bartaan taasaa ka marxaatiya amnigana uu soo kordhayo nabadgelyadii soo kordhayso lagu soo hirinayo iskuulkii waxbarashadii ardayga inuu waxbarasho 12 galaas ah dhamaysto dabeedna ku hirto hadhow jaamacad inuu galo mustaqbal samaysto dalkiisa wax ku soo kordhiyo horumar uu gaaro dhammaan ahaana shacabka Soomaaliyeed ee dawladdiba haddaan gacmaha isqabsano aqoonta iyo maskaxda dhisno waxay noqonaysaa guul dhammaanteen inoo soo hoyatay waxaan u hambalyeeynaa wasiirka waxbarashada iyo bahda wasaaradda waxbarashada gobolka Banaadir booliska maamulayaasha iyo mas'uuliyiinta dugsiyada kala duwan oo dhan kaalinta ay ka qaadanayaan waxa kale oo hambalyeeynaa saxaafadda hadiya jeer run ahaantii oo kaalin weyn iska saartay xil marka ay jiraan hawlaha iyo xafladaha waxbarashada ku saabsan daahfurkooda ka hadalkooda kaalin ka qaata iclaamka ama miidiyuhu qayb weyn oo wanaagsan buu ka qaadan karaa oo ah positive oo horumarka dalka qayb ka ah oo waxbarashada horumarinaysa gaadhsiinaysana caruurtii iyo dhalinyaradii iyo daayirtii waxa la idinkuna halkiina kaga sii wada qaybtaad kaga jirtaan waa mahadsantihiin imtixaankii sanad dugsiyeedka sanadkan 2020-2021 si rasmi ah buu inoogu daahfuran yahay ardayda imtixaanka u fadhiisanaysana waxaan u hambalyeeynaa guul baan u rajeynayaa waa u hambalyeeynaa waalidiintii ku soo tacabtay ee ku soo dadaashayna guul baan leeyahay hambalyo xilli adag oo koronaha 2020-2021 ay ina daashadeen oo dunidoo dhan ay aafeeyeen ayaa haddana waalidiintu ku dadaaleen iskuullada iyo dugsiyada maamulkooda iyo macallimiintu ku dadaaleen wasaaradda waxbarashada iyo dawladda iyo gobolka dhammaantoodna ay ku dadaaleen waxaan leeyahay waa guul hambalyo si rasmi ah ayuu noogu daahfurmay imtixaanku guul baan inoo rajeynayaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh